In questo momento non siamo tutti qui nel villaggio. Devi sapere che siamo... Sarebbe nato cieco. E grazie a Dio questa profezia continua a ripetersi fino ai nostri giorni. وحافظن oo wada indhoolayaal ah bulsho dhan oo meel ku wada nool haddana lahayn xubintii aragga ee indhaha qoyskan islaamka ah ayaa ku nool tuulo gari go'an ah oo ku taalla saxaraha dalka Mauritania tuuladan wadada sheega ama lugta ah ma gasho oo qofka imanaya waa qof tacabir aqoontiisa ku yimaada haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee dad wada indhoolo ah aanan waxba arag ugu nool yihiin meel gari go'an ah oo ka fog magaalooyinka haddana bilaa wado ah runtii sheekadan waa sheeko kurgalkeedu ku ziyaadin doono cibro xikmad iyo fakir sida laga wariyo mid ka mid ah hooyooyinkii ay kasoo fircameen qoyskan ayaa habeenada ka mid ah xilligii ay uurka lahayd waxaa manaam loogu sheegay inay dhali doonto ilmo indho la'aan ah kadib ilmaha firaciisu uu noqon doono qoys ama reer dhan oo arag ka wada naafo ah adeegida ujeedada uu Ilaahay u keenay koonkan sida caabudida iyo raaligelinta Eebbe ayaa ay hadafka fulintiisa ay u nool yihiin sida ay rumaysan yihiin gabi ahaanba waxba ma arkaan haddana waxay u nool yihiin sida dadka caadiga ah cidi kama caawiso noloshooda maalinlaha ah sida cunnada oo la karsado biyaha oo ceelka laga keensado dharka oo la maydho iyo wixii la mid ah uma qaadashada sawirka dareenka ayaa ah kaliya waxa ay wax ku kala arkaan taasina waa mid ay qalbiga ka dareemaan waana awood uu Ilaahay u siiyay dadkan qofkii Ilaahay ka baqa farad ayaa Ilaahay u furaa oo caqabad kasta iyo dhib kasta oo ku timaada waxa uu helaa wada uu kaga baxo waati aayadii quraankii oranaysay la'aanta xubintii aragga maanay ku noqon caqabad ka hor istaagta qaada gudashada noloshooda maalinlaha ah dadkan aragga ka naafada ah ayaa sida muuqata dhoolla cadeynaya oo faraxsan siday sheegeen waxay ku qanacsan yihiin xukunka Eebbe iyagoo ku faraxsan nolosha intay ka heleen iyo inay leeyihiin qalbiyo dareema nimcada uu Ilaahay siiyay kuna mahad celiya